inaan qaabil qaaran ahayn ku quusta shanta qaaradood inaan qaabil qaaran ahayn ku quusta shanta qaaradood abwaankii weynaa allah u naxariistee abshir bacad leh ayaa 20 sano ka hor ama 30 sano ka hor gabaygan tiriyey isagoo kaga hadlaya mushkiladda iyo aafada Soomaali waaga haysatay haddeerna taagan wuxuu yidhi abwaanku inaan qabiil qaran ahayn ku quusta shanta qaaradood macnaha qabiilku inuu annaga nala haray oo waddankeennisa u baabiiyey oo uu saa ka dhigay qaaradihii kale ee nala midka ahaana aad arkaysaan sida ay u hormareen waxaa jira maalmahan fiidow aad u qosol badan oo dhalinyaradu ay yani isku dirdiraysa oo ahaa dhulka Soomaali ay isku leynayso sidii u eegyahay bal eega dhulaan nabaada yani dhul aad iyo aad abaar u ah waxba aan ka soo baxayn dhulka ummaduhu ku heshiiska yihiin ay ku wada dhaqan yihiin ay ku wada nool yihiin sidii u qurux badan yahay bal eega bal waxaad suuraysataa dhulkan haddii uu Soomaali ku ooli lahaa inta in leeg baa kaga dhex dhiman lahayd ee isku leyn lahaayeen marka abwaanku wuxuu aad iyo aad xikmad badan leh Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto qabrigiisana ha u nuuriyo gabaygan ayuu ka tiriyay يعني 30 sano ka hor ka tiriyay balaan idin qanciya gabaygu waa idin quseeyaaye qaruun waliba cudur qaasaho qaybiyaa jiraye Soomaali bela loo qoray qalinka loo saaray wax qabiil ka daran jahannaman qiray aqoontayda qadartoon oo iga hilisay qolama sheegtane qabyaaladiyo iimaan la'aan qooqaybay salaya kumanyaal qariban bay dhaleen qorina heegaysan oo qaaxa iyo aydis qabaqaadse ku ilaaway nimanka tafaha qaawan oo qoriga heegaysan haddaan beledko laga qaban walaa looga qaaxayaye qaraaba iyo ahal riximnima loo qadariyay waa sanam qabyaaladii haddaad igu qancaysiine waa qaaxa iyo kaankar iyo aydis qaab darane waa cudurka qaybaha bulshadu qaran ku waayeene waa qowqam iyo sixir qalbiga qaaciyo shidae waa qaaba qowsayn dagaal qaciya yaahuwe qanjir boogi qodato qurmo qolof la weeyaane waa gorofta lagu qaybiya malaxda qayriine qandiga fuqurka iyo xaasidka qaraxa weeyaane waa waxa qaxootiga ka dhigay 100 kun oo qoyse qalbigiina ka ilaashado wada jir qiimeeyo oo qaangoor fidnoobe ilmaha yaan la qabadsen oo qaangaar fidnoobe ilmaha yaan la qabadsiinin qisa murugo iyo yaab labaan soo qayaxayaaye qof muslina qabyaaladu diloon ficil iyo qowl geysan qasadkiya ujeedaduna taa lagu qisaasayo qabiilka muxuu uga dhashay qaadir uga yeelay qisa murugo iyo yaab laho qurna soo maaha waa quud ka dhiga ruux muslina hilibka qayriine ilaahayo adigu haygu qaban qaadir baa tahay qof kasto ka qayb qaata ama qarashku taageera nafta goorta laga qaadayo laga qibloonayo qarqaradiyo dhunyeeriskiya qarowlataahiisa qacba loogu siiyaa indhaha kiiska loo qorayo diiwaanka qalinku ugu dhacay qoomame abide waxba gabaygu ila qarxina waan qabirayaaye kama quusta qayr sheeg dadkuna iga maqaataane ragun baase qiimaynayo qoraya taariikhe qabiil qaaran eheen inaan qaabil qaaran ku quusta shanta qaaradood inaan qaabil qaaran ku quusta shanta qaaradood Soomaaliyay hadal yaroo huriyay laabtayda Soomaaliyay hadal yaroo huriyay laabtayda oon haysan kari waayay baan soo hinganayaaye hawadaanan soo marinayaa hidda waa bariye hogaamadii shacabka batalan soo hordhigayaa iga hooyo caaway murtidu haybad leedahay heeraar gobeedoon ergada haybna laga waayin oo horay u soo dhaafa iyo habiya maamusle oon haba yaraatee dakana la isku hiifaynin hayeeshee sihaasaa waxaan lagu hambaynaynin hurgumadii hagardamadana hubanti loo baaro oo daacad loo wada hadlaa lagu heshiiyaaye hubka inaga dhiga waxaynu nahay hooyo oo badkada heshiis waara hawl mira dhashaa heegan loo yahay ilaahay inaan haybsanana waa haboon tahay hadiga nabiga oo lagu dhaqmiyo haybta laga faano labada heshiis iyo midnimo kama horeeyaane rabbi baa hidaayada wate hayna garansiyo hubkana inaga dhiga waxaynu nahay hooyo oo badkada
mooryaan hubaysani belay noo horkacayaane hanti iyo dad hoygay galaan haluma reebaane hambana kama tagaan hadafna male horarka mooyaane wixii hadurku nagu beeray bay noo horkacayaane haddaan laga hortagin wacadalaan marin habowdeene helina weyde hadafkaan rabno ee nagu habboonaye war maxaydin helay meelunbaad ka hifanaysiine hubka inaga dhiga waxaynu nahay hooyo ubadkeeda oo guushowa layskuma hube horarka aasheen ragow guusha layskuma hubee horarka aashiinna hiddaha iyo dhaqankii intaan hadurra aafaynin waa laga heshiin jiray dagaal tan iyo haabiile habka nabadda odayaashu waa heli ogaayeene cid waliba wixii laga hayaa loo hibayn jiraye layskumana haaraami jirin howlihii tegaye markaynu hadalla hor ilaahay baa loo heshiin jiraye war maxaydin helay meelunbaad ka hifanaysiine hubka inaga dhiga waxaynu nahay hooyo ubadkeedee oo guusha layskuma hubee horarka aasheen kii horaa hamuun baasu qabay hoota dhiig surane oo 10 haybood ka dhigay holacya baasiine ninna horumar kuma gaari karo hilib walaalkiisa waxaad si haybad leedahay intaad garab ka haysaaye war maxaydin helay meelunbaad ka hifanaysiine hubka inaga dhiga waxaynu nahay hooyo ubadkeeda oo guusho layskuma hubee horarka aasheen harqabow hurdiyo caafimaad haybad iyo raaxo haruu buuxa hogol rooba iyo wiilal hana qaada hooyiyo carruurteed bad qaba odayahaasawa iyo hodantinimo waa markii nabad la haystaaye hubka inaga dhiga waxaynu nahay hooyo ubadkeedee oo guusha layskuma hubee horarka aasheen